marka hore ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa wasaaradda tamarta iyo macdanta oo barnaamijka qiimaha leh inoo soo qaban qaabisay waxaan doonayaa shaqaalaha inaan idhaahdo marka hore hambalyo waa habeenkiinii waa habeen shaqada soo qabateen la idin oranayay waxa weeye waad mahadsantihiin qof muddo shaqaynayay in la idhaahdo shaqadii aad qabatay uu mas'uulkii maamulayay inta hore canaanta iyo inuu wax u diro iyo inuu shaqo maxaan ku dhahday ku daba joogo kula shaqaynayay uu idhaahdo waad mahadsantahay waxa weeye waa wax aad u qiimo leh shaqaaluhuna oo la horumariyo oo la dhiso oo waxa weeye la dhiirigeliyaa waa waxa keliya uu qaranku horumar ku samayn karo ummadna horumar waxay samayn kartaa markuu bini'aadanka ama shakhsiyaadka iyo shaqaalahaygaasi uu horumar sameeyo xag aqooneed iyo xag moral iyo xag dhinac kastaba intaa markaan ka imaado wasaaradda tamarta iyo macdanta waxa weeye qiimo weyn bay qaranka ugu fadhidaa xilligan aynu rabno inaynu horumarka samayno aqoonsiga aynu gaadhnay ee aynu laba kaclaynanana lafdhabar bay si gaar ah inoogu tahay waxay si gaara lafdhabar ugu tahay labada tiir ee halkaa ka muuqdaba macdanta iyo tamartu labaduba waa laba aynu u baahanay inaynu horumarino aqoon baa shaqaalaha halkan lagu sheegay oo ay leeyihiin inay shaqada ay hayaan macdanta iyo tamarta labadaba aqoonteedii ay leeyihiin labadaba aqoontaa waynu u baahannahay markaan macdanta idhaahdo waxa weeye ugu yaraan waa inaynu aqoonteennaasi keentaa in maanta ninka maalgashadaha ah ee inoo yimaada ee macdanta noocaasaan rabaa yidhaahda aqoonteennu waa inay u jawaabtahay oo waxa weeye halkaasay ku jirtaa xaddigaasay tahay intaasaa laga helayaa iyadoo aqoon ku salaysan waa inaynu diyaar la nahay cilmi baadhisaheegii iyo researchkeegii iyo waxa weeye aqoonteedii waa inay diyaar inaga tahay waa inaynu bulshada laftigeeda inta iyadu ku dhex jirtaa aqoonteenna uga faa'iidayn karnaa waad ogtihiinoo nin baa god qodanayay dabadeedna wuu ku duldhacayay waxaa la odhanayay shaydaankii dahabkaa derderay dahabki iyo macdantuma shaydaan buu lahaa radiationka iyo dee waxaa la socday aqoonta ay waa waxaynu u baahanay inay aqoontiinnu wax ku kordhisaa iminka halkan social mediaha ma hubo weli warka xaqiiqadiisa waxaan ku arkayay laba qof oo ereyadan bus dad god wax ka qodanayo oo godkii uu ku dumo wax maxaan ku dhahday ku dhaceen marka waa waxyaabaha aynu u baahannahay inay xataa aqoonteennu gaadho bulshada inta iminka ka faa'iidaysata inaynu tilmaanno oo aynu tababar siino oo aan aqoonteenna u kordhinno u gudbinno inay si wanaagsan uga faa'iidaystaan marka la yimaado tamarta waddanka horumar fiican samayn maayo haddii tamar jaban aynaan helin khabiirkii halkan ka hadlayay baa ka hadlay inay tamarteennu kuwa adduunka ugu qaalisan ka mid tahay laakiin inta shidaalka caadiga ee gaadhiga lagu shubo dab laga dhalinayo tamar badan inoo iman mayso tamarteennu jabi mayso qiimaheegu isdhimi maayo waa inaynu markaa farsamooyin kala keennaa adduunyadu siyaabo badan bay tamarta u dhalisaa ama cadeed ha noqoto oo ilaahayna siiyey ama hawo dabayl ha noqoto ama siyaabo kale ha noqoto adduunku waxa uu xataa tamar ka dhaliyaa qashinka innagu aynu u maara laanahay ee aynu meelaynu ku qubna laanahay ayay adduunyadu biogas la yidhaahdaa waxa weeye waddamada qaar tamar ka dhaliyaan waa la kala iibsadaa bal qashinkii aad bannaanka u tuuraysay haddii lagaa iibsado oo aadna lacag ku hesho waddankana uu tamar u noqdo ka warrama waxaynu u baahannahay markaa inaad aqoonteennaasi si dhaba waxaanoo siyaasad iyo dhiirigelin shaqaale iyo dhammaan waxaan oo dhani waxay noqonayaan ujeeddada loo socdaa macdantii ma laga faa'iidaystay tamartiisa ma laga faa'iidaystay baytulqasiidku waa halkaa haddaynu baytulqasiidkii si dhaba u gaadhnana aqoonteennii way shaqaysay hadday baytulqasiidkii gaadhi weydana tu waraaqa ku qoran may noqonaysaa waxaan idinku markaa dhiirigelinayaa inay aqoontaasi noqoto mid baytulqasiidka gaadha waddanka gaadhsiisa inay macdanaha dhabtaa ee maxaan ku dhahday laga faa'iidayana ay u soo saarto waddanka uga shaqayso tamartaana lagu hago in tamar wanaagsan la helo aad baan mar labaad iyo mar saddexaad ba idiin salaamayaa